waxaan ku hayaa toban website oo haddii aad tahay YouTuber si weyn ku anfici doona kuwan ma ahan kaliya kuwa ka caawinaya kobcitaanka channelkaaga YouTube balse sidoo kale waxay ku ilaalinayaan waqtigaaga dhaqaalahaaga waxayna ku fududeynayaan inaad shaqadaada si xirfad leh u qabato qaybta ugu fiicanna dhammaantood gabi ahaanba waa free haddii aad rabto inaad si degdeg ah u kobciso tayada muuqaalkaaga iyo dakhliga channelkaagaba muuqaalkan fadlan nala dhamayso intaas kaliya kuma eka hal qof oo inaga mid ah ayaa ku heli doona course qiimihiisu yahay $12 si free ah oo lagu baran doono 3D shorts editing, freelancing, and portfolio making. shuruudaha looga baahan inuu qofku buuxiyana waa inuu channelka subscribe saaro, like iyo share ku sameeyo muuqaalka, lambarna ka qabsado 1 ilaa 100 inta u dhaxaysa. nasiib wacan natiijadan waxay soo bixi doontaa 48 saac gudahood. haddii aad doonayso inaad si toos ah u iibsato course-kana fadlan iska soo diiwaangeli linkiga description-ka yaala. website-keena koobaad waxaa loo yaqaanaa remove background. website-kan waxa uu ku qabanayaa inuu background-ka sawirkaaga ka saaro muddo aad u yar gudahood. halkan ayaad ka soo gelin doontaa sawirkaaga kadibna waxoogaa yar ayaad sugi doontaa. halkan ayaad kala soo degi doontaa sawirkaagii oo bilaa background ah oo aad u quality sareeya. website-keena labaad waxaa loo yaqaanaa waa Photopea. waa Photoshop free ah oo ku jira Chrome-ka. website-kan Photopea waxa uu ka caawinayaa inaad ku samaysato thumbnail professional ah oo aad u tayo sareeya. halkaas aan ku samaysan jiray anigu waqtigii hore intaan Photoshop-ka aan haysan. website-kani waxa uu ka caawinayaa inaad ku noqoto full graphic designer sidoo kale waxa uu kugu shaqeynayaa mobilka iyo laptop-kaba. website-keena saddexaad waxaa loo yaqaanaa thumbnail preview. markasta oo thumbnail soo samayso had iyo jeer waxaad isweydiinaysaa thumbnail-kan aad soo samaysay dad badan miyuu soo jiidan doonaa. haddaba saad u ogaato inuu thumbnail-kaaga dad badan soo jiidanayo waa inaad ka dhex aragtaa isagoo ku dhex jira thumbnail badan. okay, website-kan waxa uu ka caawinayaa inuu ku tusiyo thumbnail-kaagii isagoo uu ku dhex jira thumbnail aad u fara badan. marka ugu horeysa dhinacan ayaad ka soo gelin doontaa sawirkan choose files ay ku qoran tahay kadibna halkan ayaad title ku qoran doontaa. dhinaca preview ay ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa kadibna waxoogaa yar ayaad sugi doontaa waxaanad ka dhex arki doontaa thumbnail-kaaga oo ku dhex jira thumbnail aad u fara badan oo badan anigu waan adeegsadaa website-kan intaan thumbnail-ka YouTube-ka soo gelin. website-kan xiga waxaa loo yaqaanaa flat icon. website-kani waxa uu ka mid yahay website-yada aadka loogu isticmaalka badan yahay marka laga hadlayo graphic designers-ka iyo video editors-ka. website-kan waxa uu ku siinayaa icons aad iyo aad u cajiib ah kuwaasoo free ah. waxaad ka heli doontaa icons caadi ah, interface icon, animated icon oo ah icons dhaqdhaqaaqaya. badanaa waxaad aragtaa inay tiktokers iyo youtuberadu adeegsadaan icons dhaqdhaqaaqaya. halkan ayaad kala soo degi doontaa. haddaba saad ula soo degto icon-kan dhaqaaqaya waxaad kalik siin doontaa icon-kii kadibna download ayaad ku dhufan doontaa. sida aad ku soo download ma GFI baad ku soo download mise MP4 mise PNG. anigu had iyo jeer waxaan adeegsadaa waa MP4. MP4-ka ayaa ku soo download doontaa sidaana waxaad ku haysataa icon dhaqaaqaya. website-keena xiga waxaa loo yaqaanaa Font Squirrel. website-kani waxa uu caan ku yahay inaad kala soo degto farar aad u qurux badan oo aad u badan. marka halkan waxaad ka arki doontaa faryaasha aadka u quruxda badan ee yaala. haddii aad doonayso fararka ugu caansan ee adduunka laga isticmaalana dhinacan ayaad ka eegi doontaa. haddii aad doonayso farta loo yaqaano sans serif halkan ayaad ku dhufan doontaa. marka halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan family-ga sans serif oo aad u badan. haddaad doonayso inaad soo dhulgarisato halkaas ayaad ku dhufan doontaa. website-keena xiga waxaa loo yaqaanaa Adobe Podcast. website-kani waxa uu caan ku yahay inuu codkaaga ka dhigo mid professional ah xitaa adigoo ku duubay taleefankaaga gacanta oonad adeegsanaynin wax microphone ah. halka waxaad ka aragtaa laba qaybood. qaybta koobaadi waa enhance speech, qaybta labaadna waa record a podcast. marka waxaan tegi doonaa qaybta koobaad ee ah enhance speech kadibna waxaan ku dhufan doonaa start enhancing. halkan ayaa uu ku keeni doonaa shaqada ugu weyn ee uu ku qabanayana waa inuu codkaaga background-ka dambe ka saaro iyo waxyaabaha ka daba qalqaliyaya. sidoo kalena codkaaga ayuu nadiifinayaa oo waxa uu ka saarayaa noise-ka waxaana uu ka dhigayaa professional. marka halkan ayaad iska soo diiwaangelin doontaa kadibna halkan ayaad ka soo gelin doontaa codkaagii kadibna waxoogaa yar ayaad sugi doontaa waxaanad eegi doontaa farqiga u dhaxeeya codkaagii markii hore iyo markan dambe. website-keena xiga
waxa lagu magacaabaa Robert Tags. waxa uu ka caawinayaa inaad ka hesho taagis ka dhigay muuqaalkaaga mid dad badan gaadha. Waxa taagis isticmaal weydo waxa yaraanaysaa dadka uu gaadhayo. markaasaad website-kan taagis awood badan uga soo dhex saarato, waxaad halkaa ku qori doontaa ciwaanka aad ka hadlayso adigoo ku qoriya English, kadibna waxa uu kuu soo saari doonaa taagiska ugu awoodda badan ee ka dhigaya muuqaalkaaga viral. website-keena xiga waa website aad iyo aad u qiimo badan oo loo yaqaano Leonardo AI. Leonardo AI waxa uu qabtaa inuu sawiraan ku create gareeyo adiga oo prompt ku dhex qoriya meesha. markaa waxa uu kuu soo saarayaa sawiraan aad iyo aad u qurux badan oo AI generated ah. okay, sidee ayaad u isticmaali kartaa Leonardo AI? bal aan sharaxno. okay, kadibna waxa uu ku keeni doonaa dhinacan. haddaad doonayso inaad sawir ku create gareyso, waxaad ku dhufan doontaa image meesha ku qoran tahay. halkan waxa uu kugu soo saari doonaa meeshii aad ku qor lahayd promptiga iyo waxyaabihii hore aad ugu generate gareysay. haddaba bal aan isla fiirino settingska isticmaalayso. modelka waxaad dooran doontaa modelkan anigu hadda doortay ee dhinaca kaaga muuqda. kadibna auto ayaad ku dhufan doontaa. halkana dynamic ayaad ku deyn doontaa. contrastigana medium baad ka dhigi doontaa. generation mode waxaad ka dhigi doontaa fast. cabirkan waxaad ka dhigi doontaa cabirka YouTube-ka. medium oo ka sii dhigi doontaa. marka waxa uu ku ogol yahay inuu hal mar 4 sawir generate gareeyo. intaa kale way ka xiran tahay oo qofka iibsada ayaa loo baneeyay. sidoo oo kale waxa uu ku siiyay 150 coins. markay 150 kaas ka dhamaadaan, waxay ku furmi doonaan maalinta xigta maadaama qaybta free-ga ay xadidan tahay. okay, halkan ayaan prompt-keena gelin doonaa prompt aan soo qornay. kadibna bal waxaan eegi doonaa qaabka inuu generate gareeyo. generate ayaan ku dhufan doonaa. wow, waxa uu generate gareeyay sawiraan aad moodayso kuwa xaqiiq ah. okay, bal aan u gudubno website-keena xiga. website-kan waxa loo yaqaanaa Pixlr. waxaad ka heli doontaa muuqaalo iyo sawirro stock videos ah kuwaas oo ah gabi ahaanba free. dhinacan ayaad ka arki doontaa hadduu muuqaal kugu taagan yahay iyo hadduu video kugu taagan yahay. halkan ayaad ku qori doontaa searching-ka waxyaabaha aad u baahan tahay. hadda anigu waxaan ku qoriyaa man ayaan ku qori doonaa ama nin. kadibna searching-ka ayaan ku dhufan doonaa. halka waxa inooga soo baxay niman aad u fara badan ee inooga soo baxay. kadibna ku cajabiya ama mawduuca aad ka hadlayso khuseeya ayaad dooran doontaa. kadibna dollar ayaad ku dhufan doontaa. sidaan waxaad ku haysataa muuqaal free ah oo aad u adeegsan karto waxyaabo aad u fara badan. website-keena ugu dambeeya ee ugu muhiimsani waa website aad iyo aad ku caawin doona haddii aad tahay YouTuber, arday, shaqaale, dhinac kastoo noloshana ka caawin doona. website-kaasi website kale ma ahee waa ChatGPT. AI-gan ay samaysay OpenAI waxa uu ka caawin doonaa shay kastood faraha kula jirto. tusaale ahaan oo kale, hadda anigu waxaan doonayaa inaan sawir create gareeyo oo ku create gareeyo website-keeni Leonardo AI. waxaad ku qori doontaa adigoo adeegsanaya luqadaada hooyo iyo qor prompt qof YouTuber ah oo muuqaal duubaya. kadibna waxa uu noo qoray prompt-gan af English-ka oo aad u tayo sareysa. kadibna ku beedoon doontaa waxaanad geyn doontaa Leonardo AI. saana waxaad ku haysataa sawir dhammaystiran oo aad u qurux badan. okay, maanta tobankeena website dhinacaas ayuu noogu egyahay. fadlan like iyo share iyo subscribe noo saar si aan u gaadhno meel fog. waa sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.